السلام عليكم وادي ودin salaam dhamaantiin meel wada inta xafida ka joogtiin waan sheegay la socotiin waa Nuux Dhige bartida YouTube-ka ama bartida Facebook-ka maanta waxaan jeclahay in la wadaago sida loo saxo mobile network ama mobile data ku shaqeyn weyso haddii tahay maaragtay internetka iyo haddii hotspot ka tahayba siday kugu shaqeyn karaan ayaan jeclahay inaan idin tuso marka soo dhawaada gacmo furan soo dhawaada shirkadda waxaan jeclahay inay idin la wadaago horta sim kaarka marmar telefoonka ma shaqeeyo 16ka 15ka 14ka up to 11 ilaa iyo Samsung yaasha Samsung yaasha telefoonada Samsung ah badasada ma shaqeynayaan sometimes marka waxaan jeclahay in idin la wadaago marka koowaad waa aragteen u maleynaa shaashadeeda si fiican meesha wifi-ga mujeedin hotspotka ima shaqeynayo marka hotspotkaas in active ka dhigaa raba mujeedan disable waaye okay marka waxaa suubinaynaa awalan waxaa imaanaynaa meesha la yiraahdo settingka waxaa tagaynaa mobile network meeshan uma jeedin meesha mobile data ku qoranta mujeedaa hotspot kuma jiro mobile data motor option ay ku qoran waxaa aadaa mobile data network aadaa meeshaas on ah greenka off ka dhigaa marka off ka dhigo meeshaas APN ku qoran tahay waxaa ku qoraa shirkad walba shirkadda aad isticmaasho magaceeda ku qornaysaa haddii hormuud tahay hormuud ku qornaysaa haddii safaricom tahay safaricom ku qornaysaa haddii ay company kale tahay like tahay like ku qornaysaa company aad isticmaalaysid magaciisa xagga ku qornaysaa marka hadda bilaabo howsha aniga marka like company lahaa isticmaalaya like-da ku qoraa marka like-da waxa ka hormarnaa datamobile.like.com aan ku qornaya username-ka u imaan doonaa username-ka waxa ku qoraya shirkadda magaceeda kaliya hadda tusaale ahaan idinku waxa ku qoran kartiin in case Kenya joogtid safaricom.com aa kor ku qoran kartaa meesha APN ku qoran tahay meesha username ku qoran tahay safaricom bisa ku qoran kartaa haddii aad isticmaalaysid Vodafone sidoo kale vodafone.com kor ku qoraysaa xagga hoosena Vodafone bisa ku qoraysaa hormuud aad isticmaalaysid xagga kor ku qoraysaa hormuud.com xagga hoosena username waxa ku qoraysaa hormuud bis ku qoraysaa somtel sidoo kale any shirkad any operation oo isticmaalaysid internetka isticmaalaysid ku qoraysaa password wax kuma qoraayo APN-ka meesha ku qoran tahay username bis ku qoraya meelaha kale dhan wax kale kuma qoraa waa lagama baxno Samsung way kala duwan yihiin oo markaad xaggan buuxinaysid waxyaalo kale hoos kusoo saari doonaa I will try inaan isku dayo telephone oo Samsung aan programna tusaan jeclaan lahaa insha Allah waan intuu hadduu Ilaahay yiraahdo inta kalena marka waa sidaas sida ku buuxinaysa markuu password ku shaqeyn waa internetka aan ku dhahay 5G ama 4G iyo marka aad hotspotka disable ka noqdo ku shaqeyn waay ayaa saan sameynaysaa waxa APN ku qoran tahay .com aan raacinaya username magaca company wasa ku joojinaya waa dhameeyay hadda meeshii on ka data off ka dhigay ada on ka dhiga kadibna waxa kusoo noqonaya meeshii settingkii hotspot ma jiro soo gashay meesha personal hotspot on soo mujeedid way soo wada gashay waa kaasa way shaqeynayaan kuwii ima shaqeynayaan waa tusaa u maleynaa marka xaggan settingkan ka fiiri meeshan waa kaasa enable soo mujeedid on off way noqotay marka saasa loo programmiyaa waa idin salaam dhamaantiin guuleystaa assalaamu calaykum